wuxuu la nool yahay hooyadiis iyo gabar walaashiisa oo la yidhaahdo Basma. wiilkii waxbarashada kuma fiicna, shaqo kuma fiicna, waa mid lazy ahoo tacbaana waayo. intaas kuma ekaane gabar magaalada dhinac ka degan oo reerkoodu lubnaaniyiinta xoogaa wax haysta ah ayuuba iska jeclaaday. gabadhaasuu ninkan ku qabsaday. gabadhuna waa 17 sano jir. jacayl waxaa dhacay lagu leeyahay cajiib ah, laakiin waxaa ka dambayn doona musiibo cajiiba ka dambayn doonta. jacaylkii labadii wiilkii iyo gabadhii aaday isu jeclaadeen. gabadha reerkoodu waxay soo ogaadeen in gabadhoodu ay wiilkaa xiriir la leedahay, suuriyaanka qaxootiga ah. way u yeereen, waxay ku yidhahdeen dhegayso, waa inaad cilaaqada iyo xiriirkan aada la leedahay wiilkaa suuriyaanka ee qaxootiga ah aada halkan ku joojisay. khalaas, nadaala la yidhahdaa, walaalkeed ka weyn waaye. aabaheedna waxaa la yidhahdaa cali, laakiin wuxuu ku magac dheerayaa abu nadaal. abu nadaala la yidhahdaa, wiilkiisaa nadaal la yidhahdaa. abu nadaal marka hooyada maartay gabadha hooyadeed way u sheegtay, waxay ku tiri aabbahaa waa halis baday, waana rajul musallax, macnaha nin hubaysan waaye. odaga hubkiisa ma dhigo, meesha meel baadiyo kalaa waaye. odagan marka waxay tiri waa wareersan, wuxuusan raalli kahayn haddaa isku gasho wax kastaa ka suura galay. gabaryahay ninkaa maskiinkaa ee aan waxba haysan, aan wax baran, oon shaqaysanayn, oo qaxootiga ahoo ruuxaa isaga haray tiri. gabadhi waa la cabsiyey. wiilkii dhowr maalmood gabadhii ma arkin, wax xiriira ma jiro. isagana fariimaa loo diray rag dhalinyaraha, waxaa lagu yidhi gabadha isaga har, nin fayowmatid abu nadaal gabadhiisa ka har, yuusan inta ku qabto si fiican kuu garaacin. marka ninkii waa hari diiday. cunugii suuriyaanka ahaa maxamed aa la yidhahdaa, maxamed waa hari diiday. wuxuu halkan ka baxo, halkan ka baxo, halkan ka baxo. wuxuu wacay teleefonkii guriga, iyadaa ka qabatay. marka hore ma hadlaayo ilaa qofka ka qabto. marka iyada ka qabato wuxuu dhageyso, allah yakhaliik, war nafta ay haysee, war hal mar xataa wejigaaga aan arko. kuma arkin 2 bilood, 3 bilood kusii socota. war waxay tiri aniga guriga laygu xiray, daraasadii xataa waa joojiyey. macallin ayaa ii yimaada, banaan ma u bixi kartidaa la yidhi. odaga aabbahayana waa ii dhaartay, marka ma soo bixi kara tiri, ani maxaa qaban karaa? dhagayso, hal mar aa ku arka bas yaa waxbuu damacsay. waxay tiri marka habeen dambe familka waa casuumay yihiin. oday adeerkaya ayaa casuumay, dadkoo dhan way tegayaan. fadlan iridda iisoo istaag, aan is aragno, kadibna cayuun bax. aabbahay waa halis badan yahay, yuusan ku delin. walaalkay xataa aabbahay ka qatarsan. waaya khalaas, waa noo ballan. saacaddaas waqtigaas meeshaas aan isku aragno. wiilkii oo soo baxay, albaabku soo garaaca, way ka furtay. wuxuu yidhi allah yakhaliik, war waxaan nolol ma ah, aan meeshaan ka cararnayo. war see u cararaynaa tiri maalataadii, xaggee aadaynaa? war wuxuu yidhi aniga may jecesha adiga? haa, aniga iraac. warna waxaa anaa wax walba muratab waayo, anaa diyaariyey, isku dubariday, habeeyey. meeshaan waa ka tegaynaa waa anaga. laa xawla walaa quwata. gabadhii nakeensu u lahaa boorsadeedii halhaleel ku xiratay, wixii ay ku rida kartay ku ridatay. waa la soo tegay ninkaa gabadha. ciddina abu nadaal iyo raggi
وبقي ورقي اللي ميد قواد ما شوكت وده حق فير بورصة دي وحيد وابو مقالته وابحث عليه قبل وهي odaygii habeenkii waa seexday subaxii wuxuu tagay guriga maxamed iyo suuryaanka islaantii uu tagay iyo gabadheeda markaasuu yidhi gabadheena maqan annaga wiilkeena xale ma soo hoyana dheh oo waa israaciil miya ahaa khalaas waayo markii uu dhiman lahaa hadda waayo maamadii markii wiilka dhashay suuryaanka ahayd way walwalsanta war wiilkaan imtixaansana war waxbaro waa ku kari weyn odagaan gabadhiisa maxaa u geeyay oday waalanoo magaalada dhan laga yaqaano ciddii la hadashaba qoray la soo baxayo odayga gaangister wuxuu ka naxayo bale odayga gaarigu shidaal ku cabays qorigiisana waa qaatay meel kasta oo suuriyaana degan leeyahay ka baaraan waa dhaarsan yahay hadduu qabto inuu jarjaruu rabaa odaga marka raadiskaas ku jiraa wiilkii gabadhisay u soo socdeen nin sheekha u yimaadeen waxay dhahay sheekhow dhageyso wuxuu yidhi gabadhan waa 17 sano jir anna waxaan ahay 21 sano jir waa isla soo baxsanay masaafo camal isku kaana mehriyo ninkii sheekha wuxuu yidhi waxaas ma jiraan anigu waxaas diin ma waaqaano yidhi laba qof oo kaligood iska socda si isugu mehrina gabadha aw reerkeeda aabeeda aw reerkeeda aw sheekhi waa soo diid waa soo tageen sheekh kale aadeen madaahibtu waa iska badatay lubnaaniyiinta qaar shiica waa qaar xambaliyo waa qaar xanafiyo midkii xoogaa macquula oo isku kiin mehri karaa aabeelka ishaaraysa 5 wadaad markay soo mareen mid walba diidaayo ayaa kii ugu dambeeyay mid ciyaal suuq ah wadaadnimada iska sheegta wadaad ciyaal suuqa ma garanaysa wadaad ciyaal suuq ah kanoo iska wareersan laftirkiisa markaasuu wuxuu yidhi dhageysta haye anima iga soo bilowdeen uu maya dheen xaggaa soo marnay sheekii xambaliga ahaa kii xanafiga ahaa kii shaaficiyada ahaa kii shiicada ahaa kii wuxuu dhow nagu soo diiday adaa noo haray dheen kan markay u maanayaan calawi waa calawi waxaa qolooyinkan shiicada sii fogaatay waaye wuxuu dhahay dhageyso aniga madhabkayga laftirkaygu ma qoraayo gabar iska socota keligeed inaa mehriye laakiin qorshaa idii hayaa u dhahayno markaasay dhaheen maxaa noo haysaa kiniisada igu dhegan kulaa kiniisada tagano oo see u tagayna annaga muslimiina nahay war muslimka iskaga baxa uu yidhi isku kiin mehriye warqadda ka qaatay ka socda diintaanna waaba ka baxnay dhaa kirishtaana kusoo biirnay dowladduna waddanka diimo badanaa oo sharciyeysan dad badan oo kirishtaana jira madaxweynaha kirishtaana cid kastaa kirishtaanka waa noqon kartaa muslimka waa noqon kartaa marka kiniisadaa galuu yidhi wadaadkeemada nimanka shiicada qaar waxaa jira ciyaal suuqiina jiraan oo diintaba macno weyn aan ugu fadhin magaca iska sheeganaya bis calawiyiinta darababa ugu sii jiraan waa bishaar al-asad iyo raggiis diin xataa shaqo kumalo kuwaasaa leeyahay shiicadii xataa iska fogeynaysa oo dhahaysa kuwa sahlan maayaga gaalada waxba isma dhaabaani ku leeyahy wiilkii marka waa ka caddax isaga naftaa haysa wuxuu leeyahay kaala kirishtaan aan iska dhigna agalna halkaan gabadha waxay tiroonaa dhegeyso haddaan baxar ku jiraa tiri haddana aabbahay oo mayal adag haddaan idhaahdo diintii aan ka baxay war ani waxay tiri baata maxaa kaa soo raaciyay adiga way diiday gabadha wallaahi aan galayna tir kiniisad haddaadan kiniisad galayn odagina looma noqon karee maxaa samaynaa u dhahay marka meeshaasoo mid aan qaraabanahay degan yahay suuriyaan aan tagaynaa gurigaan ka qaadanaynaa waxaan u noolaanaynaa حياة زوجين أو نوراننا لما قفوا إسقابا عمل دي إسقابتنا لكدي ده إسقابت أنا عن سمايسنا إسقابنا كوري وحيات باش نيجي سوكعي ويلك باش شوكاري كي قبضي وسكايستاو هل كاسو مركو قرا لغسي مال يرو بيرا وكسا سماي خوغا لعاق سو قاتنا waa la sii ninkii meesha joogay Suuriyaanka waxay u sheegeen inay isqabaan oo isla soo carareen
meeshaan iska deg uu yidhi meesha iska degaan beeraley iska noqdeen ninkan gabadhii halkaasuu nagta uga saaraa odaygii gabadhii wuxuu raadinaa waa wareeray odayga qoriga soo ulad buu wiifaya xaafad kasta u aadaya xagga aad war ninkaa iyo hal markaa horkeenay ka taagan odayga marka waa fakeray kaartuu dejiyey odaygii wuxuu soo kaxeeyay maamadii maxamed ka dhashay iyo gabadhii maxamed kala dhalatay basma gaariguu soo saartay usoo waday intee noo wada ay dheen qoriguu ku hayaa wuu soo waday meel cidlaaw keen markaasuu degow dhahay wuu degay uu soo degay qoriguu inta qabsaday oo wuxuu yidhi maamadii dhagayso wiilkaaga meeshuu jiro ma sheegay wallaahi alcadiim ma aqaanay tiri maamadii waa iska ooysay waa qaylisay wallaahi ma garanayo dhahday meeluu aaday ma ogi war igama maqlaayo maxaan sameeyaa dhowr jeer aan idhi gabadha ninkaa iska dhaaf war ninkaa yuu ku dilin waa iga diiday walaalow haddaa qabato waxaa rabta ku samey tiri ani warkayga waa diiday maamadu iska waayeel waa gabadhii uu ku jeestay wuxuu sheegnayaa walaalkaa meeshuu jiro gabadhayda ma iska haysan karo suuryaankan qarbaanka waxba kala ogeyn gabadhii way iska oysaydana wallaahi ma aqaanay tiri dhowr jeeraa laftirkayga tala siiyo wax baraa iri uu iga diiday walaalow waxba aniga ma ka ogi ma saasaa u yidhi haa maamadii wuxuu yidhi xagga waa sakatay gabadhii inta soo qabtay gaariga soo saartuu ka hays maamadii way kasoo daba orod ma gaariga gaaraysaa meeshana waa cidlo ayadii abateeda haysataa oo bahalla ku cunayaan meesha waa meel kayna maamadii waa iska fadhiisatay dhulka waa iska oysay yaa abuunadaal gabadhayda waxba ha ku samaynin gabadhayda dembi kaama gelin waxba ma samaynin ay ku haysaa ma abuunadaalaa maqlaayo gaarigu lahaadaba gabadhiisa markaa maxamed kaa haysta isaguna basmaduu ku tegay maxamedkana gabadha waxaa layidhahdaa hala u dhalay abuunadaalka halana maxamed kaa haysta habartii meeshaa looga tegay habartii waxay nasiib ku hashay dad kaynta ka soo baxay ayaa meesha ku arkoo soo kaxeeyo magaalada keena magaalada markay keeneen arrintii uga warrantay booliiskii ay la tageen dad lumanaaniyiin fiican ay ahaayeen booliiskii ay wargeliyeen booliiskii marka laba jihow ka shaqaynayaa jihana wuxuu raadinayaa wiilkii maxamed ahaa iyo gabadhii hala ahayd wuu raadinayaa jihana odaygii raadinayaa abuunadaalkii iyo gabadhii basma ahayd ee maxamed kala dhalatay duqda laga afduubay odayga gabadhaanu ku tegay sayra waa afduubtay gabadhiisu u soo wado meel waadi ah oo uu ogyahay inaysan cidna imaanayn ayuu gaariga dhigtay gaariga markaa alaabooyin iyo mar hore waxaa kusoo talagalay ninkan alaab iyo wax cunitaan fudud iyo waxa zaanguwijo xirxiran iyo wax badana u saaray gaariga wuxuu ku talagalay ninkan 7 beri gabadha inuu meesha ku haysto ninkan markii meesha leeyahay gabadha waa iska weyso wax tir walaalo aniga adeero way leedahay adeero odaygu weyn waay adeero aniga maxaa ka hadlayay tir aniga walaalkay waa mid anigana qof kale ah walaalow haygu xadgudbe walaalow gabar yar baan ah adeero waa ku baryayaa waxba haygu samaynin aniga dembi kaama gelin gabadhii halkaasay barooranaysaa ninkaan dharku iska dhigay qorigii soo qaatay gabadhii wuxuu rabuu ka sameeyey waxay samayn kartaa wuu ka xoog badan yahay qoriguu wataa wuxuu ugu shaqaysanaya kamaa addoon oo kale 5 beriyo meesha ku haysta تعدي وحكو سمي أن عادي أهين سحونه وقبله وتعدي وح الله وحو ربوك قبت وحو رجع ولا الكاسو قبله إذا ما هيستوي ها أديك أنا بلون واي أدام كويس سنة وتاجي أوين أوضي ما أوضي جالس أوضي امتحان واي قبله مركا عنتدا سمي كان سمي كاس سمي ومال عدنا جوان واديه بابورك waxa saaray kariya lacuna markay dhamaato xurraa inuu ayada goorba diluur raba waadiga ku tuuro waadiguna waa meel iyo wax badan iyo bahalla iyo yimaadaan waay qofna ma soo maro ninka waxba u qorshaysa ilaahay amarkiis ninkan isagoo meeshii jiifa hurda camiiq u galay marka hurda dheer ah ilaahay geliyay
waxde markii wax lagu sallida waa gooni moogtay ninkan hurdo galay gabadhii jaanis ay qoriga ku heshay qorigii soo qaadatay qorigii markay saas u daftay oo xagga la istaagtay ayuu soo booday ninkan deewanin dareen qaba wuu ku soo cararay marka wuxuu rabaa qoriga inuu la qabsado qorigana amaankiisa waa furan yahay markii saas uu soo booday qoriga afkiisa qaba uu maagay iyo xabadu markay madaxa uga dhacday isku meeshii nafta uga baxday oday Abu Nadaal khalaas waa ku daayay gabadhii basma ahayd intii hore Allah uu anfaco waay hadda waa is xoreysay qoriga tuurtay gabadhii way soo carartay iyadoo ooyeyso qaylinayso banaanka maraysa qolooyin beeraley ah oo makiinad cagaf wata soo qaadeen way arintii u sheegtay meeshii booliiska keeneen saldhigii ugu dhawaa booliiska soo baxay ninkii meydkiisa meesha ka qaadeen Abu Nadaalki qorigii ay qaadeen gaarigiisa meesha laga kaxeeyay waxa la geeyay magaaladii oo dhan islaantii uu qabay Abu Nadaalka iyo wixii oo dhan sheekadii maqleen gabadhii marka waxa loo diray الطب الشرعي وحليرادو معناها عافيمات باريتان كسماي gabadhan waxay tiri ninkan inta habeen iyo inta maalin aan la joogay way kufsanay taas ay ugu qasabtay inaan ninkan ka takhaluso dib sharcigi marka waxay soo cadeeyeen kufsi in gabadhan ninka uu kufsaday booliiskii dokumentiyadii wixii soo qaadeen maxamedkii iyo gabadhiina meeshii joogaana loo soo helay booliiskii soo qabtay waa la keenay maxamedkii waxa la yiri walaasha waxay ka takhallustay gabadhan aad la dhuumatay adiga aabaheed sidaas wax u dhaceen waxa soo dhan adiga ka mas'uul aha wixii oo dhan booliiskii inta cadeymihii soo wada qaadeen maxkamadda keeneen maxkamadda Lubnaan markii la keenay waxa lagu hormaray arinta Abu Nadaal iyo Basma odagii Abu Nadaal ahaa iyo Basma waxay sheegtay wixii dhacay qaadigii uu dhageystay qaadigu wuxuu yiri dhageyst gabadha Suuriyaanka ah hatta wala din karaa waa hadda albaabka ka baxaysa odaga Lubnaaniga asaga gardaran gabadhana ku xadgudbay afduubtay gabadhuna difaacu nafsi samays waa magaca meesha sheekada loo bixiyay qaatilatun waxa la yiraahdaa qaatila shariifa معناها gabadhii dilaaga ahayd ee sharafta badnayd ayadana wax dishay iyadana sharafteedii macnaha ilaashay gabadhii marka in la kufsaday lagu xadgudbay markii qaadigu wuxuu ogaaday gabadhii waa la sii daayay ninkaana khaato maxamadiisa isaga ilaahay u taala uu yiri waaba tagay kaas wiilkii soo haray wiilkii gabadha la dhuuntay gabadha ma qabtaa leeyahay markaasuu marna haaleeyay marna maya cadeynti keen iyo sheekhi kugu meheriyay ma baanal sheekha meesha dawladda ka jirtay markaasuu afka mirig ka sii wala kuba kufsatay miya adigana ha gabadhu ima kufsanaana raali ka ahay ku haysaa markii dambe waa loo fiiriyay ninka waxa lagu xukumay 6 sano oo xabsi ah illa laqsiyo wiilkii waaba loo naxariistaa leeyahay hay'adii xuquuqda iyo dadkii waxay lahayn ninkan kufsi uu sameeyay in xabsi dheer lagu xukumay gabadhina ayadana waa la afduubay moogtay iska baxaleeyay hadda marka ninka qoraaga sheekada wuxuu leeyahay warkii ugu dambeeyay Lubnaan waxay sheegayaan ninkii maaratay markii la soo daayay gabadhii inuu guursaday oo macnaha gabadhii uu la dhuudhuumanayay in markaa loo guuriyay aabaheedii de waaba gabadhii la dhalatay isaga ayaa dishay marka sheekada la yaab kale halka ay ka dhacday 2008 maxaynu ka baran karnaa idinka la idinka rabaa tafaasiisheeda iyo wixii laga baran karo iyo waxa macna ahaan dhaqamada inta badan dawladaha islaamku ay isugu egyihiin wiil gabar masaafaysanaya cidda u diidaysa waxa Soomaali kaliya ma dhaqankan waa dhaqan caam ah marka qisadeena toddobaadkan akhyaaray inta ayaan ku soo gabagabaynayaa fakari aragti waxaad haysaan noo soo qora inta aan qisooyin kale idinkaga soo turjumayo haddii alla idmo iyo toddobaadyada dambe waxaan idinkaga tegayaa meel kastoo